ila ku dhow filla Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay Imaaraadka Carabta ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea. Waxaa shalay kulan yeeshay wasiirka difaaca dowladda Soomaaliya iyo ambaasadorka u fadhiya Soomaaliya dalka Imaaraadka Carabta, halkaas oo ay ku kala saxiixdeen heshiisyo kaasoo siinaya dowladda Imaaraadka Carabta maamulka xerada ciidanka ee General Gordon iyo tababarka ciidanka xoogga dalka, raashinkooda iyo lojistigooda ay ku howlgeli lahaayeen, iyadoo ciidankii lagu soo tababaray dalka Eritrea ay ku sugan yihiin xerada ciidanka ee General Gordon. heshiiskan oo ka dhacay magaalada Abu Dhabi ayaa waxa uu qorayaa in dowladda Imaaraadka Carabta lagu wareejiyo kana howlgasho xerada ciidanka ee General Gordon, ayaga oo maamuli doona habsami u socodka xerada iyo ciidanka ku jira. Sidoo kalena labada dowladood ayaa iska kaashan doona qaabkii ciidanka cusub loo howlgelin lahaa. heshiiskani ayaa burinayo wareegtadii dowladdii hore ee dalka uga saartay saraakiisha Imaaraadka Carabta, kuwaasoo hadda dalka dib uga howlgali doona isbuucyada nagu soo aadan. sida ku cad heshiiska, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka caawin doonta dhaqaalihii ciidanka lagu howlgelin lahaa, agabkooda iyo dib u casriyeynta xerada General Gordon. sidoo kalena waxaa xogta aanu ka helnay inoo xaqiijisay in heshiisku ay ku milan yihiin xildhibaano iyo ganacsato ku xiran dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaraabo u dhow madaxweyne Xasan Sheekh, kuwaasoo ay dowladdu wadato. waxaana la sheegay in ay fulin doonaan 3 qandaraas oo heshiiska ku jirto, inay diyaariyaan raashinka iyo shidaalka ciidanka ku howlgeli lahaayeen, soo daabuleynta lojistiga ay ku howlgeli doonaan saraakiisha Imaaraadka Carabta ka socota, dhismaha la sheegay in lagu casriyeynayo xerada General Gordon. daba waxaa la yaaba maxaa keenay in dowladda Soomaaliya ay kaga badalato sirta ciidanka xoogga dalka wax aan u qalmin, iyadoo Imaaraadku uu ka mid yahay wadamadii laga ilaalinayay xogta sirta ciidanka xoogga dalka, iyadoo dowladda Imaaraadku ay ka mid ahayd wadamadii bishii November hor istaagay in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka, ayagoo isla markaana maya ku voodgareeyay kulankii golaha Security Council ay ka yeesheen arrinta cunaqabataynta hubka Soomaaliya, iyadoo heshiiskaasi aan la horkeenin golaha wasiirada ama xildhibaanada golaha shacabka.